الحمد لله رب العالمين وبه بلا نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على رسول الكريم أما بعد. الحمد لله إلهي بaa mahad iska leh. ilaahi wana waaxidka meesha soo kana keenay allahaas ayaan mar walbaba mahad iska leh. annagoo ka soconna maantayto inaan gabadhii walaasheen ahayn xanuunsanayd kaliya laga dhaqahay hadda ka hor meeshaan aan isugu imaanay 2020 bishii 9aad inaan u gargaarno una dalabno muslimiinta inay nagala qayb qaataan gabadhan xanuunkeeda. alxamdulillaah rabbil caalamiin in badan markaan soo soconay maanta ayuu ilaahay wana waaxidkaana waafajiyey gabagabadii hawshan. marka waqtiga ayada ay hadda inta ka dhexle gabadhan qarashaadkeedii ayaan ku maqnayn. ilaahay wana waaxidkaana si fiican ayuu nagu soo gaarsiiyey waa la helay gabadha qarashkeedii. lacagtii aan dalbanay barigaas oo dhaqaatiirtii ay noo sheegeen oo la yiri way ku filnaan gabadha haddii loo helo waxay ahayd lacag $40,000 haddii dhinaca kale loo bedelo waxaa weeye lacag 4 milyan weeyo. marka alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh. lacagtii waa noo idlaatay. maantayta waxaan isugu imaanay inaan gabadhii iyo ehelkii iyo raximkii iyo dadkii meesha joogay oo maaragtay arrintan maalinka iyada ah dalbanayeen muslimiinta inay lala garab istaago inaan haddana aan lacagtii gabadhii gadaal ugu wareejino. gabadhaas oo magaceeda la yiraahdo Khadiijo Maxamed Daahir. ilaahay baa mahad iska leh. lacagtii waan helnay. in badan hadda waa laga soo qayb qaatay. lacagta sidaad ogtihiin maalinkii aan dalbaynay dadkii nala shaqeynay oo arrinta maalinkaas nala bilaabay in badan waa dhinteen. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay wana waaxidka u naxariisto janna firdawsana geliyo. sheeqayna Sheekh Cali Guure oo maalinkaas ayada soob u ahaa arrintan maaragtay nagalana qayb qaatay. intii ka sii dambeysayna culimadii iyo ehelkii iyo dadkii muslimiinta ahaa oo na garab istaagay. marka maantayta ayaan rabnaa inaan u cadayno in qarashkii gabadha ay gabagabowday oo la helay lacagtii ahayd $40,000. dadkaas maanta waxaan meeshaan isugu imaanay inaan cadayno in qarashkii la helay, inaan u mahad celino dadkii una ducayno maadaama gabadhii ay soo gaartay qarashkii gabagabadeed inaan haddana maalinka hore baahi baan haysay baahidii baan ka cabanaynay. maantaytane waxaan helnay qarashkii aan u baahnayn oo maalinkeeda aan cabanayn. marka waxaan rabnaa inaan u cadayno dadka muslimiinta ahaa qarashkii gabadha wuu soo gaaray waana la helay. lacagtii $40,000 ahayd way noo idishahay. ilaahay wana waaxidka baan inkaaga baryaynaa meel kaste ood ka oomantihiin inuu ilaahay inka waraabiyo inta awlad la'aantaha iyo inta dhibaataysan iyo in badan oo dhici karta lacagtan inay ka qayb qaateen oo maanta ay nooleen ay dhici karto maadaama hawshu muddo dheer aan soo wadnay. ilaahay wana waaxidka dhammaantiin ha in cafiyo hana in ka raali noqdo. ilaahay wana waaxidka hana gabadhaas ha ku caafiyo arrintaas aad u gurmateen oo garab istaagteen ayadana ilaahay wana waaxidka ha ku caafiyo. wixii hadda ka dambeeyo waa ashqaalkeeda iyo sidii ay ugu sii ambaqaadi lahayd oo arrimihii qalitaanka iyo hawlaha ay ku gali lahayd insha Allah tacaala. marka waxaan in cadaynaynaa maantayto dad badan iyo culimadii baa fadhiyo oo maaragtay wixii faahfaahin oo dambe sii gali doono. laakiin waxaan rabnaa inaan in cadayno insha Allah tacaala in qarashkii uu idlaaday maantana aan ku wareejinayno gabadhii walaasheen ahayd. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.